example kale ayaan qaadanaynaa oo ku saabsan not mutually exclusive event. On the New Year's Eve lagu dhahay, the probability of a person driving while intoxicated is 0.32. habeenka loo yaqaano the New Year's Eve, habeenka sanadka cusub, the probability of a person driving while intoxicated is 0.32. probability qof inuu marka uu darawal yahay oo gaari wadaayo ama wax wadaayo asagoo khamraysan waa 0.32. The probability of a person having a driving accident is 0.09. isla habeenkaas the probability qof inuu lahaan karo an accident, driving accident waxa weeyaan 0.09. And the probability of a person having a driving accident while intoxicated waxa weeyaan 0.06. The probability of a person having a driving accident, probability qof inuu lahaan karo a driving accident asagoo khamraysanna waxa weeyaan 0.06. What is the probability of a person driving while intoxicated or having a driving accident? raadiya lagu dhahay the probability of a person driving while intoxicated or having a driving accident. raadi the probability qof inuu gaari wadaayo asagoo khamraysan ama what is the probability lagu dhahay of a person driving while intoxicated. raadi the probability haddii qof la helo inuu qofkaas uu gaari wadayo asagoo khamraysan ama uu ku dhacayba a driving accident. marka iyadana waa not mutually exclusive weeyaan events. sida tanna ayaan uga shaqayn doonaa. example kan labaad sida tan ay noqonaysaa inaan ka shaqayno. marka example-ku wuxuu sheegayaa wuxuu ku saabsan yahay traveling while intoxicated. marka waxaa naloo sheegay haddii aan horta usoo gaabino haddaan usoo gaabino driving while intoxicated macnaha inuu wadaayo gaariga asagoo daroogaysan. dna aan usoo gaabino, na aan usoo gaabino, na waxaan usoo gaabinaynaa having a driving accident. marka waxaana loo sheegay probability of driving while intoxicated or probability of I inay tahay driving while intoxicated waxa weeyaan 0.32. weeyaan. probability of having a driving accident na waxa weeyaan 0.09. probability inuu lahaan doono a driving accident waa 0.09. haddana waxaana loo sheegay probability inuu a driving accident ku dhacayo asagoo daroogaysan, a driving accident and intoxicated asagoo intoxicated garaysan ay tahay 0.06. marka waxaana ka rabaa inaan raadino information kanan haysanaa. marka waxaan ka rabaa inaan raadino probability of inuu ku dhici doono a driving accident or inuu wadaayo asagoo daroogaysan or driving while intoxicated. tan aan ka rabaa inaan raadino. marka tan hadday tahayna waxa weeyaan formuladii umbaan isticmaalaynaa oo ah waxaan isticmaalaynaa formuladii oo ah ii sheegtid formuladii hadda soo barnay oo ku saabsan not mutually exclusive, ma kala baxsana. waayo marba waxaa dhici karta inuu daroogaysan yahay ka accidentna uu ku dhici karo oo midana.
marka ma kala baxsana marka waxaan isticmaalaynaa marka midana waxayna weydiinaysaa inaan raadino midkood inuu dhici doono haddii qof la doorto qofkaas inuu ama driving accident ku dhacayo ama uu wadayo gaariga asagoo daroogaysan marka waa not mutually exclusive because way isku jirtaa waxa weyn marka sidaas aan sameynayna probability of A plus probability of I minus meeshay wadaagaan probability of A and I so meedan garan marka probability of A waan haysanaa oo waa 0.09 plus probability of I waa 0.32 minus probability of A intersect I oo ah 0.06 marka maxaa ku soo baxaya 7 out of 20 ayaa ku soo baxaysa 7 out of 20 ay soo baxaysa marka probability haddii qof la doorto qofka inuu noqon doono ama intoxicated ama accident uu ku dhici doono asagoo gaari wadaay habeenkaas waxa weeyaan 7 out of 20